kulanti wacan wanaagsan daawadayaasha qiimo badan kusoo dhawaada barnaamijkeena sahanka aflaanta kani waa toddobaadle sida caadiga toddobaad kasta waxaan kusoo qaadanaa sheekooyinka fanki caalamka maxaa ka cusub toddobaadkan ciwaanada waxaa qaadanaya filimka lagu magacaabo Raid 2 Ajay Devgan hogaamiye ka hal toddobaad oo hiid ku noqda laakiin caqabad waxaa ku noqonayso xasaasiyadda siyaasadda ee kacday iyo dagaalka India Pakistan u dhaxeeya waxay keenaysaa in shaleemooyinka laga wacdo xitaa filimo toddobaadkan shaleemooyinka la saar waa laga baajiyay Ajay Devgan waxa la marka filimkiisa sida uu super hit and blockbuster ku noqon lahaa adagta hadii aysan xiisada dhamaanin sidoo kale toddobaadkan ciwaanada waxaa qayb ka Bollywood King Khan aka Shahrukh ciwaan qaatay kadib markii uu noqday actor ugu horeeya oo Bollywood ka ah oo ka qayb qaato bandhiga fashion-ka caalamiga lagu magacaabo Met Gala Award oo dhankaas iyo gudaha Mareykanka lagu qabtay waxaan kaloo barnaamijkan ku soo qaadan doonaa yarka lagu magacaabo Sidhu filimkiisa Jack waa ka warqabnaa inuu tiyaatarada ku fashilmay Big Loss laga kulmay inkastoo uu wiilkii Tillu isku warsameeyay taxanaha lagu jeclay hadda toddobaadkan filimkiisa Jack wuxuu noqonaa midka OTT-ga lagu safasaxay barta Netflix waan isla daawan doonaa asigoo af Soomaali ah dhinaca kale waxaan barnaamijkan ku soo qaadan doonaa Suuriya waxa la yaabay sababta tan iyo saameyntii corona kadib waa u toosin la film hiidna waa keenay laayahay mashruuciisa ugu dambeeyay Retron wuxuu u muuqdaa film kale oo underperformer noqonaya ama levelkii laga filayo hubanti ahaan ka gaabin doono haddii Suuriya ay ka wararsantahay laakiin waxay ugu jirtaa ninkii naani ahay film kale oo hiid uu keenay sidoo kale 100 karoor ganacsiga iska tilaabay waa mashruuc lagu magacaabo Heat 3 oo ilaa hadda si holac u gadmaayay sheekooyinkaas iyo kuwa kala soo qaadan doona ka bogasho aan barnaamijkeena sahanka aflaanta saaxiibayaal waxaan barnaamijkeena ku bilaabanaa superstar-ka caanka Ajay Devgan ee 2025 wuxuu la imaaday film Heat dhameystiran waa mashruuca lagu magacaabo Raid 2 oo toddobaadka hore aan wada daawanay asigoo af Soomaali ah ratishtash muuqan uu laadar ka yahay Raid qaybtii koowaad 2018 daawanay qaybtan labaadna waa isla dabcan mashruuci oo sii soconay Ajay Devgan uu ku matalaa sarkaal loo xil saaray inuu ka daba tago dadka bixin way canshuuraadka iyo soo kale dabcan lacagaha guryaha ku haystaan iyo dahabka ayuu dabagal ku sameeyay si uu dakhliga banaan ku soo dhigo wuxuuna markaana to la challenge gareena dashmuuq oo siyaasi awood badan oo aan loo gali karin haddaba filimka daawadayaasha si weyn ay kaga hal toddobaad oo ku noqday film dabcan hiid dhameystiran ganacsigiisa dibad iyo dal 100 karoor ka tilaabay guusha uu gaaray ma sii socon kartaa le sababta Hindi waxay u jeesteen xaalad dagaal wadanka dhinil waa isbedelay sababta India Pakistan waa ka warqabna dagaalka dhaxqarxa dhanka xuduudaha xaaladda ka casan awgeed waxa la marka xilli shaleema la aad lama joogo sadartay marka filimkan hoos u dhac ayuu bilaabay Ajay Devgan mashruuciisa oo lisdahay blockbuster ama super hit noqonaa ilaa 200 karoor project uu gaari karaan hadda waxa la xaaladda kacday iyo sidoo kale xasaasiyadda labada dal u dhaxaysa saameyn ku yeelatay sababta dagaal socdo way adag tahay in shaleema la aado qof kasta oo focuskiisa uu wiciye sidee xaaladda noqon doontaa Pakistan iyo Hindi dagaalka dabcan ka dhex bilowday xabad joojin ma dhici doontaa ma la heshiin doona xaaladda ma ka sii dari doontaa sadartay marka Raid 2 waxa la qasaare ku noqotay dagaalka Pakistan iyo India haatan u dhaxeeya ee dhanka xuduudda ka socdo marka waxay u muuqataa filimka inuu sii socon doonin dhinaca kale waxaan soo qaadan karnaa filimka lagu magacaabo Bull Jack Maaf hogaamiye uu ka yahay actor-ka Rajkumar Rao asigana gabi ahaan shaleemooyinka waa laga dhaafay OTT-ga loo weeciyay shirkadda Maddox Films ee shaaca ka qaaday Rajkumar Rao filimka waxa ku walaas gabadha lagu magacaabo Mika Ghabi wuxuu ahaa film dabcan goosgooskiisa laga helay heesaha laga soo bandhigay qof kasta uu ka helay u diyaarsanaa toddobaadkan shaleemooyinka in la saaro laakiin waxa la leeyahay shaleemo had cid u soo jeeda male reer magaalkii lacagta haysteen qof kasta uu ku mashquulsan yahay ama uu eega xaalad sii noqon karto sababta Pakistan iyo Hindiya waa laba dal oo hubka nuclear-ka haystaan hadii xaaladda ay soo xumaato waxa laga yaabaa hubka inay adeegsadaan laakiin xaalad janna taas inaysan dhicin oo hubka wax gumaad isku adeegsan marka waxa la xilli shaleemo la aad lama joogo teamka filimkan iskala marka Bull Jack Maaf waxay qaateen go'aankii ugu saxsanaa le markii ay doorteen inay u wiciyaan dhanka OTT-ga ama dabcan laga daawan doono internet-ka sida muuqata marka waxay noqonaysaa filimka Bull Jack Maaf inuu qayb ka noqon karo isla toddobaadkan filimada aan daawan doono ayagoo nadiif ah marba hadii shaleemada laga soo wiciyo oo dhanka OTT-ga loo wiciyo cabsi laga qabo inuu ganacsi sameyn waayo ama shaleemada qof soo aad la waayo marka xaalka halkaas ayuu maraa dagaal cid ee dan ugu jirta male nabadgelyo wax dhaanto waa la waayo marka Hindi iyo Pakistan xaaladooda kacsan awgeed dhanka commercial ganacsiga aflaanta ayaa saameyn ku yeelatay barnaamijkeena sahanka aflaanta xaaladan waa kaga hadlaynaa marka waxaan soo qaadanaa saaxiibayaal filimka lagu magacaabo Robin Hood oo hogaamiye uu keenay waa ka warqabnaa wuxuu soo baxay bishii Abriil wuxuu noqday mashruuc fashilma gabi ahaan madaad ka qaaday haddaba project-kan daqiiqadii Maars uu soo baxay kadib toddobaadka kood Abriil boo shaleemooyinka waa laga daawanay filimkan wuu burbura ganacsi ahaan laakiin barta loo yaqaan Z5 toddobaadkan la soo galay wuxuu qayb ka filimada HD-ga la daawan doono Nathan hore u daawanay filimka Robin Hood asigoo af Soomaali laakiin mawduucan uu soo qaadanay waxay tahay shirkadda Z5 waxay ka rabaan Mighty Movie Makers lacag inay u celiso sababta konton karoor ku gateen filimka Robin Hood oo loo shootay Nathan iyo Sirlali heesaha ku jiray goosgooskii markii arkeen iyo Finky Kutmulo director waxay isdhahan waxba soo socda la karkarina lacag u quura markii Z5 lacagta laga qaatay filimka shaleemada la saaranay waa lagu kala carar wax meesha yaal mal shactire iyo wax aan qaab lahayn filimka uu noqday sadarteed hadda Z5 waxa la waxba loo ceemin
doona magdhow la siin doonaa lacagta faraha badan ee 50 karo laga qaatay waxay u badan tahay in qayb loo celin doono ama waxa laga yaabaa Mighty Movie Makers inay ka tanaasulaan xuquuqda ama dhanka right satellite-ka filmka markii la soo gelinaa dhanka TV-yada ama satellite-ka in shirkadda Z loo dhaafo oo Z TV laga daawado ayadoo wax lacag aan laga qaadin marka waxa la hadda kadib waxay noqon doontaa mustaqbalka atoorayaasha levelka dhacfilna hogaamiye ka yihiin lacag looma qoori doono ama lama gadan doono dhanka OTT-ga ilaa laga ogaanaa filmka natiijadiisa markii shacabka ay daawadaan hiid uu noqdo la xugmiyo kadib ayaa la gadan doonaa project sida hadda muuqato markaan waxaan soo qaadanaa qiyaare xidiga la wada jecel yahay superstar-ka Suuriya tan iyo saameyntii corona ka hor ama waxa la dhigi karaa 2000 wixii ka hor Suuriya wuxuu ahaa superstar aan loo gali karin film kasta uu keeno big hit noqdo dhankaas iyo fanka loo yaqaan Hollywood ama Tamilka xaruntooda ee tajinayna superstar weynka ilaa Hindi inteeda kale u soo dalacay Singam ee filmadii uu sameeyay taxana ahayna inaba caali ma laakiin post covid-19 Suuriya waxa wax kasta uu la imaado shaleemada loo saar waa socon laayihiin sanadka hore waxa ka burbura filmkii Kanguva oo ilaa 300 karo la garsho kamid ah taariikhda filmada uu qasaaraha badan kan ama toddobaadkan waxa uu soo baxay filmka Retro oo aan wada daawanay gabadha lagu magacaabo Jahaja ee kula jirtay sheeka ahaan wuxuu iska average u ahay daawadayaashana bariyahan lacag uma qoran filmka hadaysan contentigiisa strong ahaan uusan ku soo jeedanin sidaa darteed marka filmkii Retro gabi ahaan uu fashil wuxuu noqonaa mashruuc kale oo Suuriya culays ku kordhiyo project-gan lacagaha lagu gato ma soo celin karo underperformer ayuu noqday Suuriya waxa la marka hadda kadib waa inuu doortaa filmo waaweyn oo dabcan mass commercial ah ama inuu noqdo atoora caawiyo oo kale filmada waaweyn atoora caawiyo ka noqdo si uu u soo laabto sababta mar ka dambe waxa ninkan qiimihiisa hoos u dhacaya waxa laga yaabaa marka for the future inuu waayo filmadiisa in la gato laakiin superstar kastaba xaalad adag uu galaa marna uu ka dabaashaa marka Suuriya waxaan u rajaynaynaa filmada uu soo wada mustaqbalka inuu kaga dabaasho xaalad adag uu ku jiro laakiin hamigii laga qabo filmka Retro inuu ku soo noqon karo gabi ahaan meesha ka baxday saaxiibayaal markaan waxaan soo qaadanay General Star Nani filmkiisa Heat 3 wuxuu noqday film dabcan Heat wuxuu u socdaa sida super Heat and Blockbuster ku noqon Nani waxa banaanka ku dhacay sababtoo hadda wuxuu maraaba heer hal isbuuc 100 karo filmkiisa uu ku dhaafi karo Heat 3 waa daawanay afsameen kaga soo bahadana bila film sidoo kale tan waa film aad u macaan doorkiisa Arjun Sarkar iyo qamardiisa oo aan inaba caadi ma ahan hadaba daawadayaasha Nani filmkiisa way doorteen asigana ka dhigteen dooq ka toddobaadkan filmada gadmaay sidaasuna filmka Heat ku noqday haddana wuxuu ku socdaa sidii uu super Heat ku noqon lahaa marka General Star Nani atoorayaasha levelka dhaxa mar ka dambeeyo miisaanka culus oo noqonaya filmkiisa daasar wuxuu akiisi ugu horeeyay 100 karoor u gaaray almost $12 million Mareykanka soo xareeyo haddana Sariboda Saravanaan ku xijiyay hadda waxa la Heat 3 hubantii wuxuu noqon doonaa Nani filmkiisa taariikhan uu lacagta badan maybe 150 karoor 160 karoor meelahaas inuu gaaro marka disga waxa la caadi ma aha haddana wuxuu soo wadaa film lagu magacaabo The Paradise oo soo bixi doona Mars 2026 waa weyn ku kamid noqda Nani filmkiisa Heat 3 xitaa waqooyiga America si holac kaga gadmay sababtoo ah Mareykanka iyo Canada markii la isku daro business ahaan $2 milyan Mareykanka ayuu ka keenay marka 2 milyan waxa waay lacag saaran ma atoorayaasha qaarkood xitaa 1 milyan ama 1 milyan baraha ku adag inay waqooyiga America soo xareeyay marka saaxiibayaal markaan waxaan soo qaadanaynaa murqaaniga Bollywoodka John Abraham ee dadka yaabsa sababtoo film flop ayuu wuxuu leeyahay qayb labaad ka sameeyay John oo seerabtahay filmkiisa Diplomat oo bartamihii bishii Maars soo bixi ka soo shaleemada flop ka noqday inkastoo sheeka ahaan la amaano doorkiisa Diplomat uu matalay gabadhii Hindiga ee Pakistan ku dhibanayd oo ka soo wadaa gudaha Hindi uu keenay sheeka iska macquul ah laakiin daawadayaasha Hindi waa iska diideen sababtoo sheeka qaleel marama xirmaan sheekada in la shooto habka meesha loo dhigay heesa lagu daro action wali lagu daro shactir lagu daro jilaalo weel isku keeno John waxaas uu diiday film oo content oriented uu la imaado oo sheekada kaliya focuska 100% la saaray hadda shaleemada flop filmkan ka noqday laakiin markii internetka loo soo wiciyay toddobaadkan barta Netflix si fiican oo viewership u sameeyna saadarta John Abraham oo producerada kamid ah masabre wuxuu sheegay Diplomatkii fashilmay in mustaqbalka uu qayb labaad ka sameyn doono wuxuu leeyahay filmka marba hadii daawadayaasha qayb kamid ah audience-ga section qayb kamid ah ee ka heleen dhanka OTT-ga si fiican looga daawanayo kama sabrno leeyahay filmka Diplomat waxa qasab uu leeyahay qayb labaad inaan ka sameeyo marka waxa leeyahay John Abraham riski u bareeri doona mustaqbalka haduu qayb labaad ka sameeyo waxa la ka gadan doona qoliyaha cajaladaha qaybiyaan kuwa shaleemada iska leh waxa laga yaabaa inay xujiyaan ee dhahan film shalaf flop noqday sidee maanta lacag kaga gadan karnaa marka waxa leeyahay John laba mid ah u furan filmka lacag qiimo jaban inuu ku sameeyo sidoo kale tan qoliyaha cajaladaha qaybiyaan markuu ku wareejinayo oo lacag la'aan filmka inuu ku siinaa markuu lacag keeno kadib aan xisaabtano arintaasna way iska adag tahay marka laga yaabo in laab la kac ka tahay John Abraham filmka Diplomat qayb labaad ka sameeyna balse waxay noqon doontaa let's wait and watch aan suganaba hadee warka John Abraham rum noqonayo Diplomatkii flop ka noqday uu qayb labaad ka sameeynayo ugu dambeyntii aan soo
qaadana Bollywood King Khan aka Shah waa safiirka Bollywoodka caalamka u fadhiyo soo kale tan atooraha ugu guulaha badan suuqada caalamka markii la joogo 700 milyan oo dollarka Mareykanka ay ka badan weestaan ma jiro jilaa Bollywood ama Hindiyan oo Shah ka caansan toddobaadkan record ayuu sameeyay kadib markii qayb qaatay abaalmarinta iraada bandhig faneedka ee bandhiga fashionka sanadlaha caanka loo yaqaan Met Gala Award oo sanadkii mar la qabto dhankaasi Mareykanka ayuu tagay wuxuu noqday jilaagi actorkii ugu horeeyay oo Bollywood oo madasha red carpet ka soo muuqda asigoo fashion meesh ku sameeyay katiin weyn oo soo qaatay oo kiyaalo soo qaatay labis fashion aan caadi la soo baxay wuxuu la tartamay ama madasha uu la qaybsaday celebrity-ga caanka ee Hollywood-ka way jiraan jilayaal Hindi oo stage-ka joogeen sida Priyanka Chopra Jonas oo kaleeto gabadha lagu magacaabo Kiara Advani Diljit Dosanjh superstar Punjabi laakiin record-ka Shah Rukh Khan uu sameeyay waxa waaye waa actor-kii ugu horeeyay oo Bollywood ka tirsan shirkadda dabcan filimada Afindi lagu daawado sameeyay stage-ka caanka Met Gala Award istago 2025 marka SRK waa loo kala kiciyay ciwaankaas ayuu sameeyay record-kaas ayuu toddobaadkan dabcan dhigay oo aan barnaamijkeena ku soo qaadanaynin saaxiib guud ahaan barnaamijkan intaas nooga egyahay waa inoo toddobaadka dambe hadduu alla idmo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته